anigu hawiye daaroodii isaaq markaan ku soo wacay midna kuma aan odhanto waa ku soo wacaya anigoo ka turjumayay inaan adigana ila waa tashan wada qabiil lagu waashay anigana hawiyena ka wakiila halkayna ka wakiila ayaan horta ku soo wacay adigu meelaad ka yani hadda ka keentay warkan iyo meelaad ka qaylisay ma fahmin moogtahay laakiin anigu siday saxda ahayd ee aan leedahay waxbay ka baydhay aldaroodiye ismaaciiliye iyo meelaha la galay baan rabaa inaan hadda horta aan halka kuugu sheego anigaa ku soo wacay waxaan ku yidhi daahirow waa bil rabadaan so aniga 15 sano taariikh ku dhow friends walaalo maynaan ahayn so aniga intaa soo sano yani dadku daahir baa soo dirsaday daahir baa ay naagtan daahir baa taas horta wixii friends hadii la yiraahdo dadku yay walaalo noqon friends noqon waa anada case moogtahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي أنا كحرم بتن يوتيوب كعبد الله يقصي فيسبوك أنا حقدر ميري وحنا تأذينا برنامج قيمة لك واسون كهاد دونا نعيمة جوكر إيوه داهر على سو يستوكل إنجلش وكون ومدبدن استبجي تبي عرنتو در هاي فراك السبحيسي نعيمة جوكر سات عطوا كسور دقيستين وحا هايد كبر يدو كعبان يسي داهر على سو أورد بنا وهايد مدبدن يكوحدن هندق رسو جروب أو مدوين كان دنبا لغو حماني إنو كسو بيرتا إنجلش codkan aad iyada ahayd qofkii aad maqlayseen ayaa sheegaysa inay daahir cali soo muddo badan friends ay saaxiibina hayeen soo kala iminka isku xilqaantay wasay hadalka u dhagaysa inay xaliso arintan iyadoo oo ciido dirsan bil ramadaan lagu jiro ajarna ay ka deedayso haddaba su'aasha isweydiinta leh barnaamijkeena maanta ka hadli doona waxay tahay English xilli ma ay ugu beertay kooxda dhaqlayso group goorma ayayse isku bedeshay samafale maadaama ay markii horeba kamid ahayd dadka dhibta laga ganayo mase noqon karaa qof isaga laga cabanayo oo dhibano loo yahay inuu noqdo qof dhexdhexaad ah ama qofka kale u dooda amba iska dhiga qof labada qof u dhaxeeya arintan ayaa mawduucina maanta kaga faalan doona laakiin marka hore daawadahiga qiimaha badan ee button ku xidhan aba daawan doono waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto una share gareyso saaxiibadeena kale ku jira baraha bulshada Facebook YouTube TikTok iyo Instagram intaba waan isticmaalnaa waxay noogu qoran Cabdulla Deeqsi soo kale xogdoon media waa page-keena Facebook aad iyo aad baad u mahadsantahay saaxiib waan in badan ayaad soo garab istaagnaydeen soo gareysay laakiin waxaan dareemaynaa inaysan muuqaalka iyo views-ku sidan rabnay aysan noqonin maadaama ay hoos u dhaceen saaxiib laakiin garab istaaga aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin si qurux badan ee nolol qaadeen haddaba haddii aan barnaamijkeena guda galno gabdhaanada caanka ah ee nimco joker amba Naciimo Joker ay dadku u yaqaanaan iyo ninka daahir cali soo leeyahay iskale hadhaqlayso group amba groupka caadka baxada weyne hadhaqlayso kuwaas ayaa muddo badan istaba jiitamayay kaasi oo xataa daahir cali ugu hanjabay inuu gurigeeda soo arkay waxyeeleyn doono arintan oo muuqaal ka soo duubtay gabadh daahir cali soo dirsaday oo Naciimo Joker la joogtay waa say hadalka u dhagan Naciimo iyo sidoo kale saygeeda raabka ku dheereeyay iyo sidoo kale asxaabadan oo iyaguna baraha bulshada ku jira laakiin waxa uu sheegtay inay xataa kula jirtay kooxdan qafaaladaysa ee handadaysa English oo say sheegtay reer ahaan isku bahaysteen ma caddayn karno inagu in reer ahaan isku bahaysteen laakiin waa say hadalka iyada u dhigtay weeyaan Naciimo Joker arintan ayaa si weyn u faaftay kadibna markii ay Naciimo sheegtay in ay England tahay qofka iyadna saddexaad ee groupkan ku jira marka daahir cali soo iyo gabadhan qolka ka duubtay laga reebo waxay sheegtay in England tahay qof saddexaad iyadna ku jira barnaamijka kana maamulayda hakadaashiisa muddo badanna sheegtay inay codad xataa ka qabtay Naciimo haddaba England show waxay sheegtay inay iyadu bil rabadaan maadaama lagu jiro dadka dhexdhexaadinayso codkeeda naga maqlaysaan in muddo badan ay daahir cali soo lagu xamaynaynahay runtahay oo saaxiib ahaayeen daahir muddo badan ay isticlaayeen Naciimo oo ooyisanahay muddo badan markii ka soo muuqatay kaamirooyinka hay imka go'aansatay hadan inay kala dhex gasho daahir iyo soo kale Naciimo waxay sheegtay inuu daahir cali soo ka aqbalay bas Naciimo ay ku qacsay maadaama uu daahir ay si aqbalaadiisu macna badan ku fadhiiso oo isku group waxayna ka santahay Naciimo indhaha English show kooxda weynka ah caanka ah hadhaqaysa group kuwaas iyo jabsaday YouTuberada Facebookida iyo aaladaha kale internetka dhamaantood haddaba arrinta isweydiinta badan ayaa waxay tahay sidee ayay ku dhacday inay daahir cali soo qudhado England haddana xagga soo mar Naciimo Joker qof dhexdhexaad iska dhig muuqaal kale ay ka soo xad oo iga soo dub waa arrintan ay dhacayso amba ay dadku boqolkiiba 90 ay ku sifeeyeen haddaba daahir cali soo wuxuu adeegsanayaa tactical kale haddii aan inaga hor dhaco saaxiib tacticadan oo aynu iska dhigto England qof dhexdhexaad sidoo kale waxay Naciimo codad ka qabato runtan oo fatahdo wax kasta oo maaragtay iyadu qalbigeeda ku jirana hay u sheegto bacdayna marka ay u sheegto waxaas oo dhan isaguna wuxuu isagu ka duubay oo kale faafaayo oo halka views iyo hanjabaad iyo handaad labaad uga raadiyo Naciimo Joker waa sidaa Naciimo Joker ugu fikiray weeyaan England iyo daahir cali
balse in waxay u badan tahay inay Naciimo Joker iska garatay oo tahay qof caqli badan kadibna ay gaashaanka u dooratay inay England noqoto qofkii iyada isaga dhexdhexaadin lahaa maadaama ay markii horeba ku eedsay xataa aynadan tuhun saarin inkastoo in Naciimo Joker ay ka bixisay raaligelin muddo la soo dhaafay iyadoo oo malgangadu soo waysay inaysan England show haddeer aysan ku haynin cadeymo rasmi ah oon hayn inay saaxiib la tahay daahir iyo inay ka tirsan tahay xaqda qlasku barnaamijkeenan keenna xiga ayaan ku faalan doonaa arrimahan oo ka waaweyn faahfaahsan aad iyo aad baad u mahadsantahay